Okay. marka ugu horeysa ustaad waa kugu soo dhaweyn Axmed Nuurigaas oo muddo dheer igu kaa dambeysay laftirkaaga farxad ii tahay sharaf ii tahay inaan mar dambe ku arkay waxaan u malaynaa waxay igu kaa dambeysay waagii Kenya haddayna ka dhaweyn Taas waqti dheer ka hor ay ahayd adiga waxaan u malaynayaa 2010 maanta ayaan la waan ku dhawahay programka barnaamijkan podcastka ujeedkiisa ugu weyn waa uun kaliya sidaan ku fiirinayno waxyaabihii aa usoo joogtay oo kaleeta ka wariye ahaantaada iyo isbedelaya dhanka siyaasadeeda guud ahaan markaan kugu soo dhaweey kadib waxaan jeclaan lahaa wax yar taariikh yar oo kooban inaan marka hore helno si aan ugu soo xirano waxyaabaa usoo joogto oo kaleeta marka ugu horeysa mahadsan tahay horta halkan Mareykanka intaanan imaanin ka hor gobolkan Minnesota muqdishoan ka soo shaqeeyay muddo idaacadii ku yaalay waxaan ka soo bilaabay radio muqdisho sanadihii 2011 ilaa iyo waxaan ka wadaa sanadkii 2001 ilaa iyo 2003 kadib waxaan ka mid ahaa wariyaashii lagu bilaabay radio Shabeelle ayaan markaan ka shaqeeyay kabacdi waxaan haddana dib ugu laabtay dhanka waxbarashada iyo tacliinta oo aan baraka ahaa iskuulo ku yaala magaalada muqdisho kadib ayaan haddana Shabeelle dib ugu soo laabtay markii xaaladdu ay xumaatay oo wadankii maaragtay dhib badan oo ka dhacay oo Etoobiyaanka ay yimaadeen nimankii kale ayaguna la dagaalayay ay wadankii dhib badan ka geysteen oo haddana dadkii shacabka ahaa iyo dadkii birmigeedada ahaa iyo suxufiyiintii inta waxgaradka ah waxay u noqdeen target marka sidaas ayaan uga soo tagay Kenya muddo ka soo shaqeeyay waxaan la soo shaqeeyay urur saxaafadeed ururka East Africa iyo ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo aan suxufiyiinta ku caawin jiray xafiis ku yaala Nairobi kabacdina waxaan ka mid noqday maamulka idaacadda Barkulan ee UN uu maamulayay muddo adiga ku dhawaad 3 sano aan ka soo shaqeeyay kadibna halkaan ayaan imid oo 7 sano u dambeysay halkaan ayaan ku noolaa aada anna kula socdo waxaad taqaanaa warbaahintan maxaa la social media wuxuu adduunka ka dhigay hal qol oo kale oo inta badan qofka hadaad arkin xataa waxaa laga yaabaa in la arko iyo kooban marka aadan kula socday aada waxaa la yidhahdaa wax badanna waxaan yidhahdaa si fiican markaan u fiiriyo waqtigii ugu dambeeyay Kenya waagaan joogno kaleetana aadan kula socday ustaad waxaan rabeen markii intaas laga soo wada tago waddankaana timid ilbaxnimo ka duwantii hore wadankii siyaasado badan maxaa kugu yaabka badnaa markii laga soo tago maxaa u soo joogtay gaar ahaantaada ka siyaasad ahaan wallahi horta siyaasadda waddankan ka jirto iyo midda dadka Soomaaliya iyo wadamada Afrika way kala duwan yihiin dabcan politics siyaasad ahaan guud ahaan waa isku laakiin sida u kala isticmaalaan ayaa aad u kala duwan waddankan aan joogno waxaa ka jira isla xisaabtan hay'ado kala madax bannaan corruption meel kasta adduunka ka jira tusaale ahaan laakiin waxaan markii la fiiriyo waddankan aan joogno aad ayaa la iskula xisaabtamaa oo meel walba wixii ku baxaya waa lala socdaa nidaamka waa la qadariyaa dadku waxay ka baqaan nidaamka halkan waddankan aan joogno dadku kuma kala dambeeyaan wax kale iskuma ciseeyaan waxay ka baqaan kaliya sharciga waddankan ka jira bis ay ka cabsadaan aada weyn sharcigaaba ahmantay maxaa la yidhahdaa wadamada horumaray waxyaaba xoog ii saaraan qof walba wuxuu sida gaar ku yahay ku noqon marka dib u fiirisid gobolka Minnesota oo kaleeta iyo Soomaalida meelaha ugu badanta oo kaleeta warbaahinada oo Mareykanka muddooyinka ugu dambeeyay waxay aad uga sheekeyn jireen waxay dhahaan xataa gobol ahaan markii soo qaadanayo kaleeta waxay isticmaalaan area maalad aad u la yaabo kaleeta xaafadaha ay dadka maxaa la faqiiriin degan xaafadaha wax saas oo kaleet kole media Mareykankana way ka xoog badanta media Europe tan naqaan oo kaleet waxaan rabaa in hal mar ku xirno marka ka guud ahaan marka siyaasadda la fiiriyo Soomaali badan ayaa jirto oo siyaasadda Mareykanka saameyn ku yeeshay gobolkiina ay kamid maalooda kamid ahayd doorashada Ilhaan oo kaleet arrintii Ilhaan wax nooga sharxi kartaa wax yar oo kooban waa sax horta waddanka Mareykanka gobolkan aan deganahay Minnesota ayaa Soomaalida ugu badan soo haajiray waqooyi America ama Mareykanka degan gaar ahaan Mareykanka
soomaalida ugu badan waxay degan tahay statekan waddankan waa federal nidaamkiisu state u qaybsan yahay wuxuu ka kooban yahay 50 state Minnesota oo ku taala gobolada la isku yiraahdo Midwestern ama galbeedka dhexe ayaa Soomaali badan oo lagu qiyaasay 72,000 oo qof ay degan yihiin qaasatan waxay u badan yihiin magaalada Minneapolis oo ah magaalada labaad magaalada ugu weyn xagga ganacsiga waddankan gaar ahaan statekan Minnesota iyo sidoo kale magaalada St. Paul waxa la isku yiraahdaa Twin Cities ama magaalooyinka mataanaha ah halkaas ay Soomaalidu u badan yihiin oo degan yihiin marka waxa ugu horeysay oo Soomaalidu ay siyaasadda halkan ku soo biireen sanadkii 2013 oo deegaan hoose oo city council loo doortay wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdi Warsame markaas ay markii taariikhda ugu horeysay soo galaan siyaasadda ay ka mid noqdaan boosaska ama deegaanka loo tartamo Ilhaan Cumar ayaa iyaduna waxay noqotay oo ka mid noqotay deegaanka golaha baarlamaanka ee hoose gobolkan ayay ka mid noqotay ka bacdina markii la gaaray sanadka 2008 ayay waxay isku sharaxday boos banaanaaday oo nin la yiraahdo Keith Ellison oo Congress Mareykanka ka tirsanaa nin madow muslim ah oo noqday oo u tartamay boos kale oo maxkamadaha ah ayay ka faa'iideystay fursadaas u tartantay waxaa xusid mudan marka in aad Soomaalida ugu ololeysay oo aad loo soo dhaweeyay doorashadii isreebka ee sanadka 2018 waxay heshay dadkii la tartamayay codad adeeg gaaray ilaa 65,000 oo cod marka meeshaas ay u tartamayso waxa la yiraahdaa degmada shanaad oo ka tirsan magaalooyinka inta badan magaalada Minneapolis qayb kamid ah magaalooyin la isku yiraahdo St. Louis Park iyo magaalooyin kale oo ka agdhow degmada tahay marka Soomaalidu qayb badan ay ku leeyihiin dad badan ay ku leeyihiin qiyaas ahaan marka la fiiriyo marka aad baa loo soo dhaweeyay 2 sano kadibna waxay noqotay in booskii dib ay ugu tartanto oo haddana istreeb kale 2 sanaba hal mar ayaa loo tartamaa nin kale oo madow ah ayaa booskii ku qabsaday oo gabadhii markii maxaa la yiraahdaa ay soo baxeen eedeymo badan oo dad u jeediyeen xisbiga jamhuuriga waddanka waxa ka jirta laba xisbiga dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga oo hadda waddanka madaxweyne ka yahay Trump oo aad dhanka midig u xiga dadka taageera dad badan oo xaq jirin oo islaamka neceb ay ka mid yihiin xisbigiisa iyo dadka madowga ah dadka laga tirada badan yahay intaba neceb dadka minority-ga ah ayaa aad u dhaleeceeyay oo buunbuuniyay oo maaragtay aad uga soo horjeestay xaafadda ay ka tartamayso degmada shanaad waa xaafad ilaa 1976 qof xisbi Republican oo soo ku guuleysan marka way adag tahay qof jamhuuri ah inuu taas ka soo sharaxo oo booskeeda galo marka sidaa darteed ayaa fursad ahaan waxaa la sheegay in ninkii la tartamay madowga ahaa berigii dhaweyd ay taageereen dad lacag ku bixiya xisbiga jamhuuriga dad kale oo pro Israelian ama dawladda Israa'iil taageero lacag ku bixiya ay ninkii xisbiga dimuqraadiga kala tirsanaa ay lacag ku bixiyeen si tartanka isreebka looga laakiin waxaa muuqata in codadkii ay ku guuleysatay 2018 ee ahaa isreebka 65,000 ka badan ay hadda ku guuleysatay waxay hadda ku guuleysatay 103,000 codad ah oo kuwii hore ka badan Soomaali badan ayaa jirtay oo si uga soo horjeestay siyaasadaheeda la xiriira taageerooyin ay u fideysay dad markaas ayagu u arkayeen dad laga tirada dadka community-ga lagu tilmaamo LGBT community la yiraahdo ama gayska ayaa maaragtay ay dadka u oleysa kamid ahaa Soomaali waxay jireen marka arrinta darteed sheegay inay kaga soo horjeedeen laakiin saasay taa markaad qiyaasto 72,000 oo Soomaali ah oo degan state-ka Minnesota inta codeysa ama qofku wuxuu codeyn karaa 18 sano iyo ka weyn marka la fiiriyo tiro ahaan Soomaalida degan degmadaasi ma badna marka la fiiriyo codadka ay heshay 100,000 gaaraya marka taas waxay muujinaysaa codadkeeda inay ka heshay dad badan oo diversity oo kala duwan sida ama cadaan xaafadaha cadaan ku degan yihiin dad kale madowga ay degan yihiin dadka yuhuudda xaafadaha degan yihiin waa tartan ay guud oo ay u gashay Congress-ka lama dhihi karo marka Soomaalida kaliya ayaa qayb ka qaadatay laakiin Soomaaliduna in badan oo kamid ah way taageersanayeen inay ku soo baxdo haddana waa isreebkii
waxaa la sugayaa bisha November saddexdeeda marka la gaaro isla sanadkan in qof kale xisbiga jamhuuriga ka socdo uu la tartamo si markaas ay Congress-ka dib ugu laabato laakiin waxaa aad loo saadaalinayaa inay kusoo bixi doonto maadaama ilaa iyo 1976 qof xisbiga jamhuuriga ka socda uusan ku guuleysan xaafadaas ayna adag tahay inuu kusoo baxo oo siyaasad ahaan xataa aragti xataa fikirka ay wadato oo xisbigeedu aaminsan yahay oo kaleete ay u diidaysa dad kale marka maxaa dareemaysaa marka Soomaalida ma dareentay maxaa la yiraahdaa taageeradii hore ay siiyeen waagi hore soo baxaysay iyo tan farqiga u kala dhaxeeyay oo xitaa ay siyaasad ahaan ay u baahan tahay xitaa siyaasadda mararka qaarkood u baahan tahay ma u baahan mararka qaarkood family waaye ama qofkan Soomaali waa ama qofkan groupkeen waaye ma jireen marka dad yow kale oo rabeen ayagana booska inay imaadaan horta oo Soomaali berigii hore oo Soomaali ah Soomaa si fiican berigii hore way jireen wiil Soomaali oo Jamaal dhahaa kamid ah dadkii la tartamay laakiin kaalinta saddexaad ama afraad ayaan u maleynayaa inuu galay tartanka isreebka laakiin hadda isreebkan ma jirin qof Soomaali ah oo booskeeda u tartamay ama u soo gudbay xisbiga oo pilotka ama codaynta ku jiray ma jirin laakiin ninka madowga ah ayaa ugu soo dhawaa oo rabay in uu booska ka bixiyo isla xisbiga dimuqraadiga ay ka tirsan yihiin dabcan labadii sano u horeysay qof markuu cusub yahay freshman congress ayay ahayd marka waxaan u maleynayaa in ay wax badan ka baratay oo hadda markay ku laabato golaha congress-ka ay dib ugu laabato sanadkan 2020ka in siyaasadaheedu ay wax badan iska bedeli doonaan oo tallaabooyinka ay qaado kuwa ka duwan ay qaadi doonto taas ayaan filayaa waxaa maqlaaya maalin qoraalna ka akhrinaya Daily Nation maxaa la soo qortay Daily Nation-ka waxaa la yiri ninka campaign-keeda inta badan asaga oo qaybta u qaabilsan waa nin wax badan ka soo shaqeynayo waxay taa maalin markii ninkan la tartamayso yuhuud la dhahay xataa fargelinayso gelinayso waa loo cabsanay oo lisma dhayn xataa way soo bixi kartaa laakiin ugu dambeyn waa tan hadda rajadaasi ka jirto Soomaalida mar walba way ku kala gedisan dhankaas markii loo fiiriyo oo marka dib wadanka ku xirno siyaasad ahaan waxaan maqlay maalin xataa tirkoob la sheegay xataa gobolka ahaan Minnesota ahaan inay yihiin dadyooga oo community ahaan markii loo fiiriyo Soomaali ahaan markaan nahay intana Yurubna way ka tahay community-keena uu ka dambeeyaa mar walba duruufo badan la sheegaa dhanka aqoonta kale markii la fiiriyo Soomaalida xoog ma sii saaraan lahaa inay bulshada dhex galaan oo kale laftirkeeda waxyaabo badan oo diidi karo oo qofka dhaqankiisa inuu sii haysto uusan noqon saasi taan way baxan waa baxnaayo oo wadankii aad tagnaa jagweyni waxba laga raada waa ka soo noqonaa marka Mareykanku waxaan fiirinayaa marka inaan Soomaali dib ugu noqono ayaanu shirar Soomaali 1 2 3 shirar badan ah meesha ka socdeen oo ay laftirkeeda Soomaali dhawaan la rajeynaa xataa inay doorashooyin wana cod la dhahay laakiin si waqti alla ogey dhankaas ka waran siyaasadda dhanka Soomaaliya waxaa la gaaray waqtigii doorashooyinka in sida dadka inta badan ba ay ka warhayaan afartii sanaba wadanka waxaa ka dhacaysay doorasho marka laga soo bilaabo adiga waxyaabaha kaliya waxay ku tilmaamaan dadka siyaasadda indheendheeyo waxyaabaha kaliya ee ka nool dowladnimada Soomaaliya ee aadka hadda loo qadariyo waxay tahay in transition la helo oo afartii sanaba doorasho wax u eg ama doorasho la qabto si nidaam peaceful ama transfer nabad ah loo helo waxaa jira marka kooxo mucaaradka ka tirsan iyo dad kale oo badan oo aad shaki u geliyay in dowladdan hadda madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay rabto inay waqti ku darsato marka taas ayaa keentay in maamul goboleedyada shanta maamul goboleed ay isugu tagaan Dhuusamareeb 1 oo ay ugu baaqaan in uu ka soo qayb galo madaxweynaha ama dowladdu inay yimaadaan shirka Dhuusamareeb maamuladaasi waxay u arkayeen Dhuusamareeb inay tahay meel dhexdhexaad ah oo laba jeer ayaa madaxweynuhu ugu yeeray inay Muqdisho yimaadaan ku gacan sayreen iyagoo dabcan tabanaya eedeymo hore ama ballan ama heshiis la yiri waa fuli waayey shirkii Dhuusamareeb 3 ama Dhuusamareeb 2 madaxweynuhu markii uu tagay waa lagu soo heshiiyey wuxuuna yiri waxaan dib ugu laabanayaa baarlamaanka kadibna waa ogaan wixii dhacay oo prime ministerka ayaa meesha ka baxay si degdeg ah haddana waxaa dib loogu laabtay Dhuusamareeb 3 ama shirkii saddexaad
nasiib darro waxaa dhacday in ay laba maamul ay diidaan inay ka qayb galaan shirka beesha caalamka cadaadis saartay laakiin iyaga oo ku andacoonaya in ay kala kulmeen ballandarro madaxweynaha ama aan la fulin doonin ayay ka baaqsadeen shirka inay tagaan calaa iyo xaal hadda waxaa muuqatay in laga soo saaray warmurtiyeed qodobo ay isku raaceen intii meesha ku shirtay oo la leeyahay waxaan qabanaynaa doorasho 301 ergey ay soo dooranayaan halkii xildhibaan qodob marka waxaa ku jira qodobada meesha ka soo baxay in baarlamaanka dib lagula soo laabto oo ayagu ay tahay inay ansixiyaan dad badan marka waxay ka warsugayaan sida ay baarlamaanku taas u ansixiyaan oo haddii baarlamaanku ay diidaan dabcan waxay noqonaysaa heshiiska wax kama jiraan u noqdo balse kooxo badan oo mucaarad ka mid ah way soo dhaweeyeen waxay sababtay u soo dhaweeyeen waxay tahay in la sheegay doorasho waqtigeeda ku dhacaysa in madaxweynuhu uu aqbalay marka waxaan sugaynaa oo aan fiirinaynaa sida baarlamaanku uu soo dhaweeyo oo heshiiskaasi uu u soo dhaweeyo kadibna kooxaha kale ee siyaasiyiinta ama stakeholderska loo yaqaano sida xisbiyada mucaaradka ay kuwooda ugu waaweyn iyo maamul goboleedyada kuwa ka maqan oo madaxweynuhu ku qanciyo taas ayaa marka dhaqangalkiisu iyo rajadiisu ay sare u qaadi kartaa haddii taasi ay dhacday suurto gasho aada weyn kula eg tahay in ay dhici karto doorasho aanan dagaalkaas loo marin dadka siyaasadda qaarkood waxay yiraahdeen madaxweynaha laftigiisa wuxuu raadinaa jaanis uu ku darsado ama wax ku sii sameeyo siyaasad ahaanna mar walba way dhacdaayo markii dowlad ama xukuumad ay u dhammaan rabto kale inta badan ra'iisul wasaaraha akhir saaca birta loogu sii dhufto si oo madaxweynihii hadba wixii markaas lagu eedeynaya laakiin kula eg tahay ustaado inay macquul tahay inay dhacdo waxa la rajeynaya in extension ama waqti ku darsi u dhaco waa suurtagal in extension la sameeyo technical ah oo tusaale ahaan dowladda xasan sheekh oo kale waxay ku darsatay 6 bil ku darsigaasina ma ahayn mid ku talagala laakiin hawshii ay wadeen meesha la gaartay dowladda hadda jirtay farmaajo waxaa muuqata wax badan ay ka gaabisay oo ay ka mid ahaayeen inay u diyaar garowdo doorasho 4 sano markii la doortay maadaama dowladihii ka horreeyay aysan aas-aaskoodu aad u dhisnayn waxyaaba badan ay ka shaqaynayeen waxyaaba ay ka gaabisay waxaa ka mid ahaa in dastuurka la ansixiyo tirakoob la sameeyo afti dadweyne loo qaado dastuurka la dhammaystiro maxkamad dastuuriya la dhiso oo kala qabata haddii la isku qabsado howlaha ka dhexeeya ay dhacaan kala xalisa waxyaabahaasaa ka mid ah laakiin way dhici kartaa inay ku darsadaan oo baarlamaanku hadda intay diidaan heshiiskaas in ay dhahaan waqtigan ku darsanay waa wax dhici kara ama 2 sano ama 1 sano ama ay dhahaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka talooyinka ay soo jeedisay xalmiriya waxaa ka mid ahaa 13 bilood ugu badnaan haddii la qabanayo doorasho biometric ah marka ayagoo taa ka amba qaadaan inay dhahaan waxaana ma suurto galayaan si ay waqti ugu darsadaan maadaama aysan hubin inay soo laabanayaan intooda badan inay ku darsadaan sidoo kale waxaa dhici karta iyadoo la fiirinayo cadaadiska beesha caalamka imaanayo oo raba inaan waqti lagu darin in heshiiskan sidiisa lagu aqbalo oo iyadana laga shaqeeyo suurtagal oo doorashada la qabto maamul goboleedyada kaleeto ayagana saameyntoodii leeyihiin oo maamul goboleed walba markuu iska dhex waayo sida ama siduu wax u rabo kaleetana uu ka noqonaa maalmood waxaa arkaya xitaa maraykanku aad uga cadaadinayso oo warmurtiyadii kasoo saareen mar walba kama dhamni oo calaashaan mar walba kama dhammaano in mar walba fargelinsiya oo banaanka maxaa malayn kartaa in oo noo diida in dhexdeena xataa ilaan mar walba haa iyo maya kadib xal kala helo in mar walba la raadiyo xataa ugu yaraan maxay noo diidan tahay dhaqan ahaan soomaalideen wallahi horta soomaalidu waxaa ka jirtay dowlad centralized ah oo iyadoo dastuur la haysto 9 sano oo dowlad rayida waddanka ay ka jirto xukunka askar ayaa xoog ku qabsatay maxamed siyaad barre talada la wareegay 21 sano waddanka haystay xumaan iyo samaan wixii uu sameeyay taariikhda qoraysa laakiin dadkii waxay noqdeen 21 sano inay xukun military ah oo dikreeto lagu magacaabo maamulada meel kasta xamar looga taliyo ayaa waxay keentay shirkii dowladda Cabdullaahi Yuusuf lagu soo dhisay in Soomaalidu in badan oo aan ka mid ahayna aysan raalli ka ahayn federalism ama aanan rabin laakiin ay noqotay in waddanka federaal qaato taas macnaheedu marka ma aha haddaad adigu ka soo horjeedo nidaamka federaalka ama aad ku qanacsanayn wixii sharcigu qaatay waa the law of the land waa in lagu dhaqmo marka nidaamka federaalka ee nagu cusub ee qaab qabiilaysan ayaa wuxuu noo keenay dhibaato badan iyo inaan fahmi weyno
qaabka dowladnimada loo jiheeyo oo ay noqoto qof walba in uu ka fiirsado qabiilkiisa meesha uu hadduu ka waayo uu si kale isaga dhaadhiciyo inaysan wax soconayn marka nidaamku wuxuu noqday in hoos laga soo dhiso puntland lasoo dhiso jubbaland lasoo dhiso hirshabeelle koonfur galbeed galmudug maamuladii marka hoos laga soo dhisay xilli kasta oo la gaaro doorasho maadaama dowladdu aysan aad established u ahayn waxaa dhammaanaya oo yaraanaya legitimacyga sharciyadda baarlamaanka iyo dowladda intaba marka waqti yar haro sidaa darteed maamul goboleedyadu waxay rabaan in lagala tashto awoodda waddanka maadaama ay qayb badan ka yihiin awoodda dalka madaxweynaha waddanka hadda talada haya waxyaabihii uu ku ololeeyey markuu prime ministerka ahaa waxaa ka mid ah inuusan nidaamka federaalka iyo 4.5 waxaasan uusan ku ganacsanayn uu centralist yahay saasay tahay haddana shaki badan ayaa jira maamuladu ka qabaan awoodda inay xagga centraalka ama dowladihii hore oo tii maxamed siyaad barre kale in loo laabto ay ka baqayaan waxyaabahaas ayaa keenaya in badan oo kamid maamuladu ay ka cagajiidaan laakiin waxaan filayaa in wax badan laga baran doono haddii madaxweynuhu uu nabadoon noqdo oo uu meesha ugu taga cid walba wax tabanaysa oo dadka isku soo jiido waa laga bixi doonaa dhibaatooyinka jira waxaan filayaa in doorasho la gaari doono aada weyn haddaa hadib u fiirin xitaa waxaa fiirisaa ma jirto qayb ama dowladda qaybaheeda ka mid ah oo madax bannaan oo haddii wax dhacdo xataa xaalad degdeg oo kaleeta ama qaban karta hadda waddanka Sweden maxaa xasuusta doorashada ugu dambeysay waddanku wuxuu dowlad la'aan ahaa bilaa systemkiis kala caadiga laakiin dowlad ahaan ahaa muddo 4 bilood 3 bilood ku dhawaada waxaa la isku waafaqi weysanaa kaliya sidii wax la isku meelaya laakiin wax walba caadi u socdeen sistamyada dowladda dhan way shaqeynayaan walow uusan wasiir jirin laakiin way jireen xafiisyadu way shaqeynayaan hadda dib u fiirisay sagaashameeyada kale dagaalka markuu dhacay haddii madaxweynihii dhibka Ohio la dhismo okay madaxweynaha hadii la bixin lahaa oo systemkii lagu dhaafi lahaa kale waxaa noqon lahayd laakiin hadda waddanka kama jirto oo maxkamadii oo kale cadaaladii dowladdu ma cadaaladda saxda lagama haysto waxaa laga yaabaa waxyaabo badan inay dadku wada dhaliilayaan dhaliishan macnaheedu maaha moogta qofku inuu saxal leh macnaheedu ugu muhiimsan laakiin inay uga faa'iideysan haa waddankan hadda Mareykanka tusaale ahaan horta waddankan waxaa ka maqan oo dhisnayn institution hay-ado dowladeed ma dhisna tusaale haddii hadda dowlad la dhiso madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasiirada agaasimayaasha waxaad arkaysaa wasiir markii la soo magacaabo tusaale ahaan wasiirka arrimaha gudaha ama wasiirka arrimaha dibadda in uu haddana keensanayo agaasimihii guud ee wasaaradda xogayihii guud ee wasaaradda shaqaalihii hoose marka asaga xilka laga qaado 4 sano 2 sano meesha ay ka baxayaan dadkii technocratka shaqada yaqaanay haddana waxay noqonaysaa dad kale in la keeno waxna waa nominated oo qof la magacaabay qofna waa qof technocrat ah oo shaqada ku yimid waddankan Mareykanka hadda hay'adihiisu waxa ka jira separation of powers waa Congress-ka oo aqalka hoose iyo aqalka sare Congress Mareykanka wuxuu ka kooban yahay aqalka hoose 435 wuxuuna ku base gareysan yahay gobolada ama isteediyada waddankan state walba tirada uu soo dirsado tusaale ahaan state walba wuxuu dirsanayaa numberka marka dadka tirakoobka lagu sameeyo sanadkan wuxuu ka kooban yahay 100 qof oo state walba uu soo dirsanayo 2 senator madaxweynihii oo gooni ah oo dowladda soo dhisanaya iyo maxkamaddii sare haddii la isqabto marka maxkamadda sare kala saaraysa haddii labada Congress-ka markasta wuxuu la xisaabtamaya madaxweynaha hadda marka waddankeena madaxweynaha imaanaya prime minister soo magacaabaya baarlamaanka wixii dhan waa isku qasin waxaa arkaysaa baarlamaanka xubnihii baarlamaanka oo golihii wasiirada ka tirsan haddii xukuumaddii lagu eedeeyo inay musuqmaasuq samayso ama xilgudasho la'aan ay samaysay ninka la xisaabtami lahaa waa xildhibaan ilaashanaya booskiisii wasaaradda madaxweynihii iyo inay isku milmeen baarlamaankii marka wixii dhammaa waxay noqdeen hal gacan waddankan marka wuxuu u baahan yahay institutional building maxkamaddii sare maxkamadda dastuuriga maxkamadihii gobolka baarlamaankii madax bannaan xukuumaddii oo lala xisaabtamaya in meesha laga saaro qodobada dastuurka dhibaatada u keenaya sida in wasiir uu noqon karo xildhibaan in wasiir noqon karo meesha laga saaro sidoo kale prime ministerka iyo madaxweyne in badan waa isqabqabsadeen iyagana dastuurka awoodahooda la kala hago markii waddanka institutionkiisa hoos laga soo dhiso ayaa dowladnimada kore la gaari karaa tusaale kale hadda waxaan usoo qaadan karaa magaalada muqdisho mar walba mayorka waxaa soo magacaaba madaxweynaha oo dowladda federaalka ah taas marka waxay dhib u keenaysaa inuusan mayorku madax bannaanaan uusan nabadda iyo gobolka uusan waxba ka qaban laakiin haddii hoos laga soo dhiso golihii deegaanka muqdisho la dhiso
golaha deegaanku ay doortaan xubnihii matalayay meeyarka shacabku ay soo doortaan isla xisaabtan uu jiro booliiskii iyo nabad sugidii gobolka uu goonidiisa u leeyahay waxyaabo badan baa dhici lahaa laakiin anaga dowladdeena waa top up bottom down ma aha oo hoos lagama soo dhisin koraa mar walba laga dhisaaya madaxweynaha mar walba la eedeynaya madaxweynaha kaliya wax ma qaban karo waa in hay'adihii dowladda ay kala dhisan yihiin haddii fursad marka madaxweynuhu meesha ka helo ama qof madaxweyne noqda in wax la xisaabtama aysan jirin waxay noqonaysaa in uu wuxuu rabo uu ka samaysto marka waxyaabo badan ayaa naga khaldan laakiin dowladnimada baranayna waxaan rajaynayaa inaan ka gudbi doono waxyaabahaas ayaan rajaynaya aada weyn maalid waxaan arkaya aljazeera oo qaybta fikrada aan arkaya mid dhahaya east marka bariga africa loo fiiriyo soomaaliya khaladaadkeeda maxaa la yidhahdaa baahidii tirada badneed dagaalka tirada badneed rajo fiicanay ka muujinayaan dadkaan sameynaya kole ayaga waxba ka ogeyn laakiin waxaad dareemi kartaa fidrada ilaahayna waxaaba ka mid ah xataa ilahay inuusan dadka ku dhaafin oo dhib intaas laeg kule wax badan waa isbedelayan dib hadda ugu soo noqono soomaalida inta badan wadamada adduunka soo barakacay oo kaleeto markay waddan ku noqdaan qof walba siyuu dib ugu celiyaa qof wax soo bartay oo waxbarashadiisa ku celiyo qof aan maxaa la yidhahdaa kula soo noqday inkastoo mar walbana salkii lasii galaan qabiil iyo waxaan loo aqoon ma arkaysaa maxaa la yidhahdaa mustaqbalka soo socdo dhalinyaro kaleeto ama dad kaleeto oo maskaxdiis classicii hore aanan lahaynoo wax badan ka bedeli kara waddanka ma arkay waan isleeyahay oo dhalinyaro badan oo waxaa jirta wax baratay hadday gudaha ahaan lahayd iyo hadday wadamada dibadaha ay joogi lahaayeen inkasta oo isku fikir ayna noqonin marka la fiiriyo qaabka tacliinta laakiin rajo badan baan ka qabaa mustaqbalka in waddanku intiisa badan waa dhalinyaradu in ay ka gudbi doonto waxyaabahan ama ku salaysan caadifad ama qof jeclaysi oo waddanka haddii loo soo jeesto marka mustaqbalkiisu ma xuma dhalinyaro badan oo jirta oo soo koraysa oo wax baranaysa oo adduunka hadda tacliinta waxay noqotay global informationka hadda waa global wax walba hadda waa fartaada shaqaaga haddii laga baxo misinformation badan oo dadku waxbarashadooda sare loo qaado manhajkana la dhiso waxaan aad uga rajo weynahay in ay isbeddel uu dhaco dhanka dhalinyarada uu isbeddel ka yimaado dib hal mar ugu soo noqon Minnesota oo kaleeto hadda waxaa la rajeynayaa gabadha ilaahan mar labaad inay haddana ay tartanka la geli doonto maxaa ku saadaashaada waa sidee gobolka Minnesota horta aan deganahay dadka muhaajiriinta ah ee degan waxaa nooga soo horreeyay dad ka yimid waddanka Laos Asia ku yaala oo Hmong community loo yaqaana Soomaalida ayaa ku xigtay waxaa kaloo nala degan dad Latinos ah marka loo fiiriyo Soomaalidu dhaqdhaqaaq way ka dhaqdhaqaaq badan yihiin community kale dhanka siyaasadda hadda state-kan aan deganahay dhowr qof ayaa ku jirta laba gabar iyo wiil ayaa hadda ku jira golaha hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota sidoo kale hadda maalin dhoweed waxaa ku guuleystay tartanka sare wiil Soomaali ah inuu ka mid noqdo sanadka aqalka sare hoos degmooyinka ilaa iyo maxaa la dhahaa city councilka waxaan hadda ilaa hadda xusuustaa laba Soomaali ah wiil Soomaali ah oo hadda bedeli doona Cabdi Warsame iyo gabar kale iyaduna city councilka marka siyaasadda hadda aad uga muuqdaan marka la fiiriyo Soomaalidu inkastoo ay ka mid yihiin dadkii immigrant-ka ama soo galootiga kuwooda ugu cusub waddankan marka aad bay uga dhex muuqdaan siyaasadda ganacsiga aad bay uga dhex muuqdaan haddana saas oo ay tahay duruufo badanaa jiro duruufaha badan waxaa ka mid ah waddankan oo dhaqankiisu uu ka duwan yahay waddankeenii iskuullada markay noqoto ciyaalkiina ay midabkoodu ka duwan yahay ciyaalka kale dhaqan ahaan laga yaabo hooyada iyo aabihii afka inaysan si fiican u garanayn gaar ahaan kuwa dhowaanahan soo galay culture-kii ama dhaqankii oo aad uga bedelan dhaqankii aan naqaanay cimilada oo aad uga bedelan iyo jawiga waxyaabahaas oo waxay keenayaan duruufo badan in ay ka dabageey waayaan waddankan waxaa ka jira dabaqado dadku ay u qaybsan yihiin dabaqad sare dabaqad dhexe kuwa aan waxba haysan kuwa wax haysta marka waxaa jiraya gaab ama farqi u dhexeeya ciyaalka Soomaalida marka ay iskuulka la dhigtaan ama ay fasalka la fariistaan ilmo kale oo ka dabaqad duwan oo waxyaabaha ama dharka ay iibsanayaan ama baabuurka lagu qaadayo moral ahaan uu ka duwan yahay kuwa kale laakiin hadda jiilkan koobaad aad buu ugu dhibtooday waddankan laakiin jiilasha soo koraya ama kuwa halkan ku dhashay kobci doona waxaan aad uga rajo qabaa inay
wax badan ka duunaan doonaan kuwa hadda jiilkan ah oo ay waddanka waxa la qabsan doonaan siyaasaddiisa iyo ganacsigiisa iyo ay aad ugu milmi doonaan ayaan rajaynayaa wax yar oo cajiib oo muddooyinka u dambeeyay marka arkaya tviyada localka oo maraykanka xataa aad u isticmaalayaan Trump inta badan wuxuu saaran yahay gabadhan Ilhan ma aqaan wax kaligeedna ma ahaan oo asaga waa taqaana madaxweyne Trump intiisa badan xoogiisa waa Twitterkaas wax reaction walba uu bixiyo ka sameeyo not only for ayada kaliya ma ahan sida aad xusuusato sanadka 2018 horta Trump waxyaabaha uu ku soo koray markiisii hore wuxuu ahaa nin television producer ah oo barnaamij ka soo saara television sidaas ayuu caan ku ahaa nin ganacsada ah oo dhismooyinka ka shaqeynaya uu ahaa magaalada New York laakiin waxyaabaha uu ku soo caan baxay oo siyaasadda uu ku soo galay waxaa ka mid ah cayda aflagaadada iyo isirnacaybka dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha uu ku bilaabay wuxuu ahaa madaxweynaha Mareykanka ee ugu horreeyay madow ahaa Barack Obama ayuu ku bilaabay in uu yiraahdo waa nin aan ka tirsanayn dadkan ama American aan ahayn wuxuu sidoo kale shaki geliyay inuu ku dhasho waddanka Mareykanka wuxuu ku bilaabay wax beertism u dhaho ama inuu ku dhasho waddanka Kenya madaxweyne Barack Obama markii uu shahaadadiisa dhalashada Hawaii uu soo saaray wuxuu yiri waa fake waa shahaado been abuuray waxyaabahaas uu ku soo koray markii madaxweynihii uu la tartamayay Obama ololihiisa la soo gaarayna xisbiga jamhuuriga ama xisbiga Republicanku waa xisbi dhanka midigta u janjeera conservative ah waxyaabaha aaminsan yahay waxa ka mid ah kaniisadaha iyo maartooda dadkan maarta laga tirada badan yahay in diin ahaan ay iyagu ka wanaagsan yihiin ama diinta Kirishtaanka qaasatan groupka la yiraahdo evangelicals inay dadka kale ka sareeyaan waxyaaba noocaas ay aaminsanayeen marka wuxuu sameeyay dadka immigrantska ah qaasatan wixii adduunka markaas ka jiray Yurub iyo Mareykanka in ay ururka ISIS al-Qaacida kale argagixiso iyo dhibaatooyin ay jireen inuu masraxa ku soo koro taas marka wuxuu uga faa'iideystay qaasatan dadka Soomaalida oo Minnesota degan halkan Minnesota ka soo degay wuxuu yiri statekiina ama gobolkiina waxa dawladdu keentaa dad qaxooti ah argagixiso ah fikrado xun wata oo dhibaato ku haya gobolkiina hadaladiisi waxay noqdeen kuwa in badan iibsamay hadda gobolka Minnesota qof Republican ama xisbiga jamhuuriga ah xilli uu madaxweynimada ku guuleystay waxa ugu dambeysay 1972 saadaasha hadda 2020 la bixinayo waxa laga baqayaa Trump inuu ku guuleysto gobolka Minnesota arrimahaasna waxa ugu wacan cunsuriyadda dadka madowga ah qaasatan dadka muslimiinta ah dhibaatada uu ku hayo iyo idaacadaha waddanka Mareykanka ka jira sida idaacad Fox News la dhaho oo inta badan diiradda saarta nacaybka iyo dhibaato ka sheegista dadka muslimiinta ah oo u tusa dadka muslimka halkan ay degan in ay yihiin society ama bulsho dana qarsoon wadata oo wax ay dhahaan dadka ku faafinaysa in America qabsadaan oo xoog ku qabsadaan oo ay sir wataan ay dadka ka dhaadhiceen marka dadka Mareykanka waa dad inta badan TV-ga aad u daawada waxyaabahaas waxay keeneen base ama dad taageerayaal ah oo xisbiga jamhuuriga lama wada dhihi karo kulligood laakiin intii xag jirka ahayd ayaa madaxweynaha uu hadda wataa oo aadka u neceb qowmiyadaha kale marka taas ayaa keentay in Ilhan maadaama xisbiga dimuqraadiga ee ka tirsan Congress-ka ay fadhiso go'aan ay leedahay inuu iyadana aad u dhaleeceeyo oo u tuso macnaha tii ku jirtay Congress-ka waa tan dhibaatadan ay wada kuwada shacabka dhibaatadan ay wadaan waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa keenaya inuu nacaybkaasi ku sameeyo waxaana ugu weyn siyaasad ahaan inuu ku koro janjarta uu ku soo laabto marka uu qof ataago ama weer uu ku qaado waxyaabahaas ugu weyn وعلشان انت بدأت فكر كيس وقد ما مركو هاد وحير كبحي وكلا تفكر كاس والا قدا او ميدي اذا هاد حوقة دي بكسي هليسو هادا في ريسيد هادا ايانتا وحاسعوتي لين اد بدن إن كان هذا اللي بايرين وكلاته يا سجى حوق إسكو هايان وكلا معقول يا سجى إنه هذا ترامب شيء وكلا إنه كرون هذا قبل بدن ما أنت هذا أن جوج من وقت كان للجوج وحي وضن كان وحي استعمال عن بوليس ضدك ريجسترت كديوان قشن عداية لبض نعبها هذان أي وحي كقادان قد بحن أنت تلفونك ولا هذان مقاب كله وحي ديان مركا عدة أو عدينا يعني إن أدفانس marka xilliga hadda la joogo horta wadankan Mareykanka
qaabka ay u codeeyaan waa indirect democracy ama doorasho aan toos ahayn dadku markay codeeyaan waddanku wuxuu ka kooban yahay content state laakiin nidaamka waddanku u degsan yahay waxay tahay waxay isticmaalaan waxa la dhaho electoral college oo ergo oo ka kooban 538 qof 538 270 ka mid ah qofkii ku guuleysta ayaa waddanka madaxweyne ka noqonaya marka shacabku markay codeeyaan si toos ah madaxweynaha uma codeeyaan balse state walba tusaale ahaan Minnesota waxay leedahay 10 ka mid ah electoral college California waxay leedahay 55 Florida waxay leedahay 29 Texas waxay leedahay 38 waa tusaale macnaha gobolku ka dad badan yahay iyo numberku ku base gareysan yahay marka la codeeyo oo Joe Biden iyo ninka la yiraahdo Trump loo codeeyo gobolka Minnesota oo ballot kala wada ay ku jiraan state-kani ku guuleysto hadii 3 milyan oo qof ay codeyso 2 milyan ama adu tira isdheer 50+1 qofkii helay state-kan ayaa 10kii electoral college-ka ergada ahaa wada qaadanaya marka state-da loo codeeyaa ayaa loo fiiriyaa policy hadda jiro xilliga hadda jiro haddii maanta codbixinta la qaadi lahaa dadku waxay saadaalinayaan Joe Biden inuu madaxweynada ku guuleysanayo oo marka numberka electoral college la fiiriyo state-yadu waxay u qaybsan yihiin kuwa weligoodba u codeeya Democrat iyo kuwa weligoodba u codeeya Republican oo safe labada dhinac ka ah marka tusaale haddaan kaas iyo California gobolka Washington Seattle magaalada gobolka hadda deganahay Minnesota New York waa state-yo la yaqaano mar walba in ay ku xisaabtamaan xisbiga dimuqraadiga xisbiga jamhuuriga sida Texas iyo state ay kamid yihiin Arizona iyo state New Mexico Montana Georgia Ohio waxay kamid yihiin state-yada mar walba ay ku xisaabtamaan xisbiga jamhuuriga oo safe-ka u ah marka waxaa la fiirinayaa qofka inta safe-ka u haysto state-yada waxaa jira marka kala reebta oo la yiraahdo swing states oo mar walba dhinac u codeeya states waxaa kamid ah Michigan waxaa kamid ah Wisconsin waxaa kamid ah Pennsylvania waxaa kamid ah Florida afartaas hadda aan ku sheegay waxaa ku guuleystay last 4 years ago 4 sano ka hor 2016 Trump oo la aaminsan yahay madaxweynaha inay ka dhigeen hadda marka saadaasha la bixinayo Michigan iyo Pennsylvania iyo Wisconsin iyo Florida intiiba waxaa la saadaalinayaa inay u janjeeraan dhanka Joe Biden iyo waliba kuwaas waxaa la sii socda state ay kamid yihiin Arizona oo inta badan Republicanku ay qaadaan inay asaga xaqiisa u janjeeraan toss up waxa la yiraahdo haddana dhexda lagu soo tuuro waxaa kamid ah state-yada safe-ka u ahaa ayaga sida xisbiga jamhuuriga inta badan ay qaadaan 38 electoral college leeyahay waxaa la dhahaa Texas hadda waxay ka soo wareegtay xisbiga waxay u janjeertaa dhanka marka waxyaabahaas inkastoo hadda state-ka aan deganahay Minnesota neck and neck ay yihiin oo uu dhanka kale aadi rabo haddii la fiiriyo Joe Biden maanta ku guuleysan lahaa doorashada laakiin waxaan saadaashu noqon kartaa maxaa dhici doona hadda doorashadii waxay dhacaysaa November 3 waxaa ka dhiman hadda August aan ku jirnaa September October adiga 60 iyo dhowr cisho waxyaabo badan dhici kara markii 60 oo ka cisho laakiin maanta la joogo dadku waxay aad u rajeynayaan inuu Joe Biden guuleysto haddana wax kala dhicin sababtoo ah ninkan marka laga reebo dadka hoose base-kiisa ah taageerayaashiisa ah Mareykanka intiisa kale aad bay uga soo horjeedaan waxaabihii uu 2016 ku guuleystay waxaa kamid ahaa Hillary Clinton oo siyaasadda ku soo dhex jirtay muddo dheer waxyaabo fadeexooyin ay ku soo baxeen sida safiirka Mareykanka lagu dilay Benghazi dalka Liibiya iyo emailo la sheegay inay si khalad u isticmaashay ayaa kamid ahaa waxyaabihii dadku ay ku naceen iyo iyagoo isbedel raadinayay ninkan Trump u arkay hadalkiisa uu sheegay inuu isbedeli doono oo san ka dhabaynayn laakiin waxa cadaatay markuu White House-ka ku fariistay waxay uu sheegay oo dhan inay run ahaayeen oo waxba iska bedelayeen oo wali uu yahay nin xaq jir ah nin aan madaxweynimada waddanka Mareykanka u qalmin oo been badan oo markuu masraxa soo istaago hadduu 10 eray sheego hal kamid ah uu run yahay inta kale ay been yihiin waxaa sidoo kale la sheegay in waddanka Ruushka oo in badan Mareykanka ay hayeen uusan dhaleecaynin ama wax ka qaban maalin waxaa soo baxay xog sheegaysa in Ruushku ay lacag ku bixiyeen askarta Mareykanka ee Afghanistan ka dagaalanta in Taliban ay lacag ku siiyeen inay dilaan waxyaabahaas markii lagu soo qaado oo kale haday dhici lahayd madaxweyne Mareykan asaga ahay waxa dhici lahaa qabateen la saari lahaa dhibaato weyn ay dhici lahayd laakiin asaga uu ka aamusay wuxuu isku dayay inuu daboolo
marka lagu soo qaadana ma jecla marka dad badan ayaa waxay hadda arkeen Trump inuusan ahayn ninkii ay saadaaliyeen arrimahaas oo isbiirsaday waxay keeni doonaan in loo codeeyo Joe Biden xitaa dad waaweyn oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah sida ninka la yiraahdo John Kasich oo Ohio governor ka soo noqday ama gudoomiye ka noqday Trumpna la tartamay xogayihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Colin Powell oo Bush la shaqeeyay sidoo kale John McCain gabar uu dhalay madaxweynihii hore Bush kulli waxay sheegeen in ay ka soo horjeedaan Trump oo ay u codeyn doonaan markii ugu horeysay Joe Biden way aaminsan yihiin waddanka inuu ka saari karo coronaviruska hadda uu ku jiro tusaale ahaan hadda waddanka Mareykanka adduunka wuxuu yahay number 1 ama waddanka koobaad ee cudurka coronavirus waxaa lagu eedan qaabkii uu u handal gariyay ama uu isticmaalay in cudurka la dagaalamo intii u horeysay wuxuu sheegay in cudurkan uu yahay cudur been ah oo xisbiga dimuqraadiga ay wataan cudur China ka yimid cudur iska tagi doona haddana xaaladii sidii ma aha waxyaabaha lagula dagaalamo cudurka sida in la kala fogaado wajiga la xirto Trump marar badan ayuu ka soo horjeestay taageerayaashiisuna way ka soo horjeedeen waxyaabahaas waxay keeneen cudurka inuu faafo dad badan marka ay ka mid yihiin dadka waayeelka ah oo marka hore isaga u codeeyay iyo dadka aan haysan degree ama college aqoon non college degree dadka ay dhahaan ama college ama aqoon jaamacadeed aan lahayn oo marka hore isaga u codeeyay oo dadka inta badan baadiyaha degan inay hadda ka codeyn doonaan waxyaabahaas isbiirsada marka rajadu waxay sheegaysaa in Joe Biden guuleysan doono haddii labada bilood soo socda wax weyn inay isbedelo may waa aad u dagaalamay muddooyinka aad loo sameeyay sidoo kale Mareykanka aad wuxuu hadda faragelin fiican uu ku hayaa xataa bariga dhexe oo ayaan xataa qarax ugu dambeeyay hadda xasuusatid maxaa Israa'iil oo calaaqaadkeeda toos ula yeelato kale wuxuu dhahay xataa Trump arkay qoraalada uu sameeyay mar dhowna wadamo kala socday wax badan oo ku yeeshay oo wadamo badan ilaa hadda quwadda ugu weyn hadda maadaama ka yahay Soomaalidu markay joogto waddanka ka waran wacyiga siyaasadda anaga hadda waddankan oo kale Sweden waxaa jirta hadda ka hor ayaan oo idaacadan qayb aan ka shaqeynaa waxaan raadinaynay sida looga doorto EU-da loo codeeyo kale dad badan oo waxaan arkay dhahay 20 sano degan weligeena ma sameyn Soomaalida halkaas ka war ay sayinayeen Soomaalida horta in badan oo ka mid ah oo codeyn karta waxaad moodaa in aysan isku dhibin inay codeeyaan waayo waxaad markaad codeynayso waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaan geliso markaad isdiiwaan geliso inaad tagto meesha laga codeynayo in badan oo aan meelaha laga codeynayo tagay u malay ma hal qof oo Soomaali ah inaan ku arkay marka waxaad moodaa inaysan aad xagga civic participation ama ka qaybgalka qofku waxa uu xaq u leeyahay inuu codeeyo marka uu waddanka dhalashadiisa haysto in badan oo kamid ah kuma baraarugsana siyaasadda gudaha ee waddankan aan joogno Mareykanka Soomaalidu in badan oo kamid ah kuma baraarugsana laakiin ayaanta u dambeysay maadaama qaar badan oo naga mid ah ay siyaasadda daneeyeen oo ay kamid noqdeen waxaad moodaa in wax isbedeleen oo ay hadda sidoo hore ka bedelan tahay laakiin sanadihii u dambeeyay ee Soomaalida ka qaybgalkoodu aad buu u liitay laakiin sanadkan hadda 2020ka maadaama ay arkeen nacaybka Trump uu Soomaalida u haayo in badan oo kamid ah waxaan rajeynayaa in sida la filayo inay ka qayb qaataan doorashooyinka laakiin saasay tahay haddana wax badan kama bedeli karaan oo state-ka hadda la joogo Soomaalida ugu badan tahay waxaa la sheegayaa in Trump iyo Joe Biden ay macnaha iska daba dhow yihiin 46% cod bixin la qaaday haddayna wax badan isbedelin marka haddii ay in badan oo kamid ah ay soo baxaan 46kaas waxbay ka bedeli karaan state-kan oo state-kan oo 10 cod leh waxay u wareeji karaan dhanka xisbiga dimuqraadiga oo laga baqaayo in uu sanadkan jamhuurigu qaado laakiin mustaqbalka waxaan rajeynayaa aad inay u fahmi doonaan siyaasadda Ustaad Axmed aad iyo aadan kaaga mahadcelin waqtiga qaaliga waqtigan dambe dhowr jeer aan isku dayn xataa waan rajeynaa aniga laftikay waxyaabo badan oo ka aqoon xataa dacaawo waa maqlay laakiin waxaan malaysaa in waddankaas inkastoo hadda yihiin kaga faa'iideysan lahayn Soomaalida joogto yani si badan oo ag marayo laakiin waan rajeynaa inaan wada arki doono Ustaad aad iyo aadan kaaga mahadcelin waqtiga qaaliga aad baa u mahadsantahay thanks for having me